waxaa xarunta radio himilo nagu soo booqday Cumar Maxamed Xasan oo sheegay inuu yahay aabaha gabadhan yar ee aadka u xanuunsanaysa oo lagu magacaabo Xabiibo Cumar oo 3 sano jir ah. Cumar waxaan ka wareysanay oo aan su'aalo dhowr ah ka weydiinay gabadhan yar qaabka uu ku bilowday xanuunkeeda iyo ilaa iyo hadda heerka uu la maray daaweynteeda. ugu horreynna waxaan weydiiyay goorta shilkan garay gabadhiisa iyo halka uu ku gaaray. magacaygu waa Cumar Maxamed Xasan Mursal oo ku dhashay degmada Buur-Hakabo. gabadhan muddo 7 bilood ay saanta ilmo yar oo dheedheelaya isha geed ka geliyay. halkii joogtay markaas xaafadda halkee weydow. dhibka iyadoo fiyow ay baxday baadiyihii tagtay dhibkaasuu ku soo gaaray geedka isha weydow markii laga geliyay iyadoo fiyow way tagtay ishii way soo gedisay. waa la keenay doctor Shiina loo wareejiyay daawooyin u qorqoray daawooyinkiisa u socdeen ee hal mar ishii banaanka iska soo baxday. warqadaha hadda aan watana kansar inay isku bedeshay ala sheegay. hooyadeed magaceed maxaad adigu u tahay? hooyadeed Xaawo Ali Cabdi aabaheedana. meeqa sano ayay jirtaa marka? gabadha 3 jir ilaa 3 bar. sidee xaaladeedu isku bedelaysay tan iyo markii dhaawacani uu isha ka gaaray? alxamdulillah tan iyo markii dhaawacan uu soo gaaray maanta rajaan leeyahay rajo culus ayaan leeyahay. shacabkayga ay garab istaagay welina hadda ay garab istaag baan ka sugayaa. marka dhib kale hadeer igu soo kordhay oo hadeer tan ka weyn aan suganayo ilaahay abuuray ma jirto. maxaysan hooyadeed kula socon waqti xaadirkan oo aad adiga kaliya ula tacaalaysaa xaaladeeda? waxaan hooyadeed aysan igula soconin. hooyadeed itaal aan ku daaweeyo uma hayo. ayadii baa xanuunsan. inkastoo iyada xanuunsan tahay kuwii kalena nooli bay rabaan. kuwii kale daryeelkooda iyo iyadoo sariir saaran. marka iyadoo saas u dhib qabta haddana weli waxay dadaal u tahay diyaar u tahay inay ilmaha kale ay daafacdo midaan daawadeeda aan daafaco oo ummadaas ilaahay u dhaxgalo. maxay ku yiraahdeen dhaqaatiirtii aad u geysay? dhaqaatiirtaan u geeyay dhaqaatiir tiro badan ayaan u geeyay. dhaqaatiirtii qaar gacantay iiga taageen qaarna rajo waxay i geliyeen gabadheeda inay caafimaadayso daawooyinkaas ay ii qorayaan. hadda maxaad codsanaysaa? hadda waxaan codsanayaa itaal aan daawo ku gata malayi. shacabka Soomaaliyeed ayaan waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta iyo maamulka dawladeed iyo maamulka hay'adeed waxaan ka codsanayaa gabadhaas daryeel inay igu raadiyaan ayagoo ilaahay dartiisa waxay ugu qaban raayaan.